jaamacadda Alba ee farceedu yahay magaalada Burco ayaa guddoonsiisay shahaadooyin iyo abaalmarin ardayda gudinaysa hiila caafimaad sida uu warbixintaasi noogu soo diray wariyaheena magaalada Burco Cabdiqani Baafo. jaamacadda Facaweyne Alfa University iyo urur ay ku bahoobeen ardayda jaamacadda Alfa gaar ahaan qaybta caafimaadka ayaa soo qaban qaabiyay barnaamij caafimaad oo ay ka fuliyeen ardayda jaamacadda Alfa gaar ahaan qaybta caafimaadka deegaano hoos yimaada gobolka Togdheer kuwaas oo gaarsiiyay kaalmooyin caafimaad. munaasabadan ayaa daaranayd sidii loo dhiirigelin lahaa ardaydii barnaamijkan fulinaysay muddadii uu socday. ugu horeyn waxaa munaasabadan ka hadlay isla markaana dardaaran iyo ducabees ugu daray ardaydii barnaamijkan fulinaysay muddadii uu socday gudoomiyaha jaamacadda Alfa University Professor Cabdiqani Ibrahim Xasan. ardayda martida oo runtii aan kala saari karin oo ugu horeeyo xogayaa dawladda hoose iyo sidoo kale shirkadihii ka qayb qaatay barnaamijkan martida kale ee ka soo qayb gashay runtii barnaamijkan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii caawaay farxad in halkan lagu soo bandhigo runtii barnaamijkii hiil caafimaad ee fikirka iska lahaayeen ardayda kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Alfa. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay barnaamijkan oo dhiirigelisay hadday noqdaan shirkado, hadday noqdaan wasaaradda caafimaadka iyo hadday noqoto heertuulayaashii degmooyinka tuulooyinka ay tegeen runtii markaan ka hadlayno in bulshada runtii wax loo qabto ama barnaamijyada inta badan mutadawacnimada ah waa wax qaaliya runtii oo bulshadu ay u baahan tahay dalkuna ku dhismo runtii dadkuna ay ku dhismo. runtii barnaamijkan runtii faa'iidooyin fara badan ayuu u lahaa ardayda, faa'iidooyin kalena runtii wuxuu lahaa wasaaradda iyo caafimaadka iyo sidoo kale bulshada labadaba. haddii aan ardayda ku horeeyo runtii ardaydu waxay cilmigii ay soo barteen muddada koobnayd iyagoo ku jira sanadkii ugu dambeeyey qalinjebinta waxay garteen in ay bulshadii ay dib ugu celiyaan runtii cilmigii ay soo barteen taasna runtii faa'iido u tahay. qodobka kale runtii wasaaradda caafimaadka runtii qayb bay ka qaadatay marka iyana runtii qayb ka mid ah waajibaadkeedii ay lahayd runtii ay ku taageertay runtii ardayda waxaan uga mahadcelinayaa runtii jaamacadda Alfa waxay u taagan tahay runtii kor u qaadida ama ka qayb qaadashada baahiyaha bulshada ka jira. waxay hore uga qayb qaadatay abaartii ka dhacday waddanka iyadoo adeegyo caafimaad ka soo fulisay markaa caynaba iyo sidoo kale qoynta iyo degmooyin fara badan runtii markaad eegto runtii dadkeenu inta badan waxay u badan yihiin reer guuraa ama dad ku nool. dadkaas waxay u qaybsamaan dad leh wadooyin ama gaadiid helaya oo infrastructure fiican ku imanaya tuulooyinkii ama meelihii caafimaadka iyo dad ay adag tahay inay u yimaadaan. runtii taasi waxay sababaysaa in dadku ay u dhintaan xanuuno markaa si bariya markaa dawooyinkooda la helayay. markaa runtii saddexdaa tuulo ay tegeen sida dadka ka dhawaajiyeen waxay ahaayeen meelo markaa runtii aan wadooyin lahayn oo baahi weyn runtii ay ka jirtay. jaamacadda Alfa runtii markastoo iyadoo garab taagan ardaydeeda waxay ballan qaadaysaa runtii inay fulinayso adeegyadaas oo kale. haddii dib aan ugu noqdo runtii barnaamijkan wuxuu kaga duwanaa barnaamijyadii kole shirkadaha ayaa gacan fiican ka geystay. dawooyinkaas runtii dawooyin aada u fara badan ayay ahaayeen. markii dadkii runtii la daweeyey waxaaba soo noqday markaa qaybo fara badan oo dawooyinkii ka mid ah. markaa waxaan odhan karaa waa xajmi ama capacitigii ugu ballaarnaa runtii jaamacadda Alfa inta ay jirtay runtii ay ka qayb qaadatay adeega caafimaad runtii inay soo fuliso. bulshada gobolka Togdheer iyo shirkadaha kaleba ama cid kastoo danaynaysa inay kor u qaado dhibaatooyinka ama in la hagaajiyo baahiyaha ka jira bulshada runtii inay ka qayb qaataan. geestooda iyaguna waxaa munaasabadan ka hadlay isla markaana u mahadnaqay cid kasta oo kala qayb qaadatay barnaamijkan intii uu socday ardaydii barnaamijkan fulinaysay. maxay barnaamijku siduu markii hore kusoo biloomay ilaa iyo halkan siduu kusoo gaadhay. bishii afraad 2019 anagii saaxiibkay Maxamed Cawli Saleebaan runtii waxaa ka horeeyay jaamacadda Alfa anagoo dhigana ayaa waxa jirtay in mar walba horta jaamacaddu barnaamijyo badan qabato. marka waxaan soo afkaranay bal in aanu qaban karno annagoo dhiirigelin aanu ka helay gudoomiyaha jaamacadda Alfa University Professor Cabdiqani Ibrahim Xasan oo aad iyo aad uga mahadcelinayo oo oran karo runtii la'aantii caawa madashan isku yimaadeen ama ka qayb qaatay barnaamijyada ay ugu horeeyay shirkadaha
ugu soo horeeyo shirkadda dawooyinka soo dejisa Al-Aamin Muumin Medical Wholesaler waxaan kale oo aan halkan yana aan ka sheegayaa shirkadda kale ee ka qayb qaatay barnaamijka ugu horeyso Tasliim Human Care African Medical Wholesaler Sagal Chad shirkadda biyaha Saxan Soxo ugu dambeyn waxaa munaasabadan soo gabagabeeyay duco iyo dardaaran dhiirigelin ah isugu daray ardaydii barnaamijkan caafimaad ka fulisay qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer xogayaha fulinta dowladda hoose Maxamed Sheekh Xismaan Nuur waxaan u hambalyeeynaa waxaan u baarigaynaa waxaan ugu mahadnaqaynaa barnaamijkan wanaagsan ee caawa halkan nasiib aynu kaga hadlayno hiil caafimaad la magac baxay ee ay iska kaashadeen jaamacadda Alfa iyo wasaaradda caafimaadka oo aad iyo aad wax lagu farxo waxaan idiin sheegayaa doorta kaga bakayli maynee danahay maamulkii degmada iyo gobolkaba gudoomiyaha jaamacadda Alfa iyo ardaydiisba wax badan bay qabteen aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa kugu hambaleynaynaa gudoomiye waxaan halkan kale oo idinka sheegayaa ardaydan jaamacadda Alfa waxqabadkeedan ay isku taxallujiyeen ee ay maanta runtii barnaamijkan uu Maxamed Yar imika halkan ka akhriyay iyo waxqabadkoodii uu kaga sheekeynayay waxa iga soo baxay wax aad u weyn jaamacadda Facaweyn ee Alfa University ayaa ka mid ah jaamacadaha ugu aqoonta iyo tacliinta sare ee gobolka Togdheer waxaana sanadka soo saartay aqoon-yahano wax badan ka bedela guud ahaan Somaliland. Cabdiqani Cabdullaahi Baafo wararka telefishinka Royal TV magaalada Burco.